وقيبتي تبنادي برنامجيدي تحناها أنو كغا هدليني تاريخ الصومالي آذن milatarigii haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1969 mucaaradadii ugu weyneed ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975 talaabadaasi waxay keentay in culimadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida boqolkiiba boqol loo oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaas uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay diideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyey Maxamed Siyaad Barre aynan gudagelin afgambigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise ma muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyay 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoo diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal shaqo ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo cis iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caamiyadana ay ictiqaadsan tahay in laga maarmaaya waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooshka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qarabakiilka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo Maxamed Siyaad Barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa Maxamed Siyaad Barre uu jeediyay khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taas dhacdo gabadha xoolihii aabeed ay korigeed leedahay wax kale ay ka qaadayn waxa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc والثلث والخامس والجن ما jirto taas labada qof way isku mid way isku xaq waa simayhiin xuquuqda muxuu mujtamaca ama waaridkooda ay ka dhaxdaana waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida mana kala hooseyso taas isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu labada qof oo ragga iyo haweenka ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa markaas balada aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka aynu inagu rukunkii ugu horreeyay saas ku xabaalno waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxda ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynaynaa maxaa waxay addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaashaa bay jirtay haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen kitaabkeenna kama muuqateen haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulud iyo rubuc maxaa keenay waa fududa waxa keenay gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xaafkaasi uu ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keeni lahayd ha dhimato caqligooda iyo rusaasku ku socon jiray diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoreysmi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo maalin baa hayad la soo dejiyo maalin ba tilaabo la qaado ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen ayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay waxaan rajaynayaa inay
qoladiina ay hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin waa gar in aad ila yaabtaan waa gar maxaa waay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican. taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadkii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu talagashay inuu noqdo sanadka haweenka. dhegeystayaal imakana sheekh maxamed macalin oo ka mid ah wadaadada diinta sida xoogale u yaqaan aadna dadka Soomaaliyeed u yaqaaneen ayaa aayadahaasi tafsiirkooda sheegaya. yuusiikum allahu ilaahi idin dardaarmaya fii awlaadikum fii sha'ni awlaadikum awlaadiina aad dhasheen sha'nigooda idin dardaarmaya isaga xaqood idinka jecel yani bani aadamka fiiri awlaadi adigu aad dhashaan lagu dardaarmaya ilaahay kuu dardaarmaya yani ilaahay siduu khalqigiisa yani u jecel yahay siduu ugu roon yahay awlaadaad dhashay ee adigu kaa soo go'day iyaa sidaad ula mucaamaloon lahayd ba lagu dardaarmaya oo lagu leeyay sidaa iyo sidaasi haddii kale adigu lagu daayo waxaa suura inaad qaar qadisid yaa dhici karayso kolka ilaahay baan ogolay dardaarankii waa maxay lidakari kan lab waxaa u sugnaaday midla xadil unsayayni laba dhedeg dheeftooda u sugnaatay laba dhegedeg intay qaadato iyo ninkii qaadanaya haddii meesha ninka oo ka tegay wiilidii gabdho wiilkii laba gacmood buu leeyahay iyadan gacan bay leedahay fa in kunna hadday ahaadaan yani caruurtaa laga tegay nisaaa naago hadday ahaadaan naagahaasoo fawqa sanatayni laba iyo wax ka badan ah hadday ahaadaan falahunna naagahaas hablahaas waxay leeyihiin thuluthaa maa taraka maydka wuxuu ku tegey labadiisa thuluth bay leeyihiin ninkii wuxuu ku tegey waa dhintay laba gabdhood iyo wax ka badan buu ku tegey waxay leeyihiin maalka markii 3 loo dhigo laba gacmood bay leeyihiin wa in kaanat hadday ahaato gabadha oo ka tegey waaxidatan mid hadday ahaato ninkii waa dhintay hal gabar buu ku tegey falahaa iyada waxaa u sugnaaday an nis bay leedahay maalku nuskiisay qaadanaysaa wali abaweyhi maydka dhintay labadiisa aabo waxaa u sugnaaday hooyadii aabihii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid la arko oo minhumaa labada aaba ka mid a waxaa u sugnaaday assudusu meeshii 6 ayaa u sugnaatay minmaa kii xaggii bay uga sugnaatay taraka oo ku tegey nin baa dhintay labadiisa aaboo ku tegey aabihii hooyadiiba ku tegey mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyuu leeyahay meeshii 6 waas goorma in kaana hadduu ahaaday lahu maydkaa dhintay waladun hadduu walad u yahay nin baa dhintay caruur buu ku tegey ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen wuxuu dhalay buu ka tegey aabihii hooyadiina waa ka tegey aabbahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel 6 baa laga siinaa mid walba meel 6 ayay ku leeyihiin maadaama isaga awlaad uu leeyahay fa in lam yakun hadduunan ahaanin lahu maydkii waladun walad hadduun u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba keliya ay dhaxlaan faliummii hooyadii waxaa u sugnaatay athulusu meeshii 3 wuu dhintay caruur ma laha aabihii hooyadiiba ku tegey aabihii hooyadii iyo ku tegey hooyadii waxay leedahay meel 6 iyay leedahay inta kale waxba kuma laha aabahana iska qaadanaya midna waa nasiib midna waa casab. kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macalin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka. haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aanu si weyn ugu soo xiganayno ayaan wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii militariga ahayd. ugu horraantii waan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoogayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintan anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lay soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanayay baghdad marka muctamar culamaa almuslimiin waxaa kasoo qayb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaarayaal qaarkood
rag badan oo baarlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oon idhaa war arrinta tan anigu ma daafici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanaan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiyayo ay noqotay markaan inta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanaan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaadu ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid oo dhexdhexaad oo war adduunka uga sii darinaha marka waxyaaba la difaaci karaya maanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida anwar saadaad allah u naxariiste ixtiraam ahaan waan ixtiraamay cabdullaahi kooga waa safiir meesha ka ahaa guri la yidhaaha qasrul curuuba oo 2 maalmood ka hor boqor xuseenkii dhintay allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday uu ka baxay boqoradii madaxweyneyalka lagu soo dejiyey ayuu aniga igu dejiyey wafdigiina guryo kale ayaa la geeyey laakiin warradii inuu naga qaado ayuu diiday haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi masaarda anwar saadaat oo qudha ee waxaa jiray madax kale oo carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasu uu xadgudub ku yahay diinta islaamka sida cismaan maxamed jeel uu noo sheegay waddan kale oo carabeed ayaa isna boqorkiisu uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe laysku noqday oo lala kulmay cismaan maxamed jeelle ha inoo sii faahfaahiyo habeenkay dib isugu noqdeen oo waana noo galay isagoo waxba kala odhan warqadiina intuu qaada meel iska dhigay sidii waxaan astaahilin la akriyo ilaa waxay ka hadli buu sii ogyahay kumuu ahaa boqorkaasu allah naxariisto boqor faysal u ahaa dib ayaynu ugu soo noqon doonaa arrimaha soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca jabuuti bishii noofembar ee sannadkii 1974 ayaa doorashooyin ka dhacay waxaa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka haddaba bishii Disembar sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Gaskad waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wada hadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon ra'iisul wasaarena waxa ka noqday Cabdalla Maxamed Kaamil waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqday ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka jaamacadda Carabta barnaamijkuna maanta dhegaystayaal halkaa ha inoogu joogo